بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داوديال waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha oo xiyaan kala aad kaga barteen aad ka daawataan Rajis Sports TV waa maalmaha salaasaha taariikhdan waxay ku asaysan tahay 25ka bisha koobaad ee January sanada 2022 qodobada barnaamijka aad kaga bogan doontaan saaxiibayaal waxa kamid noqonaya Aston Villa hogaamiyooda Stefan Gerrard oo raadinaya daafaca dhexe Trey Lyons iyo Liverpool Joao Gomez qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya Manchester United oo Atletico Madrid iyo Borussia Dortmund kula biireen raacdada loogu jiro garabka reer Colombia iyo Porto Luis Diaz ayaa qodobada barnaamijka kamid noqonaya wararkaas sidoo kale muuqaalka ciyaaraha ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya Gabon weeryaankoodii Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang oo iska diiday dalab oo ka helay Saudi Arabia kooxa ka dhisan qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha waxa ku jiray doona weeryaanka Arsenal bartilmaameedku ee Dusan Vlahovic waxa uu doortay naadiga oo doonay inuu ku biiro inta lagu guda jiro daaqada kala wareegga ciyaartoyda bishan January Arsenal oo 6 ciyaartoy weerar ka ciyaara bartilmaameedsanaya bedelka ciyaaryaanka reer Serbia ee Dusan Vlahovic oo jawaab ku qancaan aysan ka helin qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya Newcastle United iyo naadiga Liga Eega Faransiiska ciyaartay Nice oo ku biireen raacdada loogu jiro ciyaaryaanka Jose Lingard ee Manchester United qadka dhexe kaga ciyaara qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha aad ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya Bayern Munich oo Chelsea kula biireen raacdada loogu jiro 24 sano jirka qadka dhexe reer Netherlands iyo Barcelona Frank de Jong naadiga Wolverhampton Wanderers waxay u sheegeen Tottenham haddii ay doonayaan xoogweynaha reer Spain ee Adama Traore in ay bixiyaan aduun lacageed gaaray 25 milyan oo lacagta euro koobka qaramada Afrikana xulka saradani mucjisada ka dhigaya tartan qaramada Afrika ee African Cup of Nations ee Gambia oo Guinea garaacena kulamadii kale ee la ciyaaray martigeliyaasha oo 2 gool iyo gool Comoros ku dhaafeen kulamada caawa jira wareegga 16 ee tartanka qaramada Afrika Senegal oo la ciyaari doonaan jasiiradda Cape Verde halka Morocco iyo Malawi ay is arkay doonaan qodobadaas iyo qodobo kale ee barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal kaga bogan doontaan anigoo Xasan Cabdullaahi ayaa barnaamijka idin saar halkan idin kala socodsiinaya waana mar kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ee Rajis Sports TV intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha maanta oo talaata qodobadii aad daawateen haddii aan ku bilaabana naadiga Aston Villa hogaamiyooda Stefan Gerrard ayaa doonaya inuu ka soo dukaamaysto naadigiisa hore ee Reds Liverpool inta lagu guda jiro daaqada kala wareegga ciyaartoyda bishan January Aston Villa ayaa Liverpool weydiisteen suurtagalaasha ay kaga heli karaan Joao Gomez oo 24 sano jira ciyaaryaanka reer England oo dhaawacyo marti u noqday xilli ciyaareedkan ayaan ku jirin safka koobaad ee tababaraha reer Germany ee Liverpool leeliya ee Jurgen Klopp lama oga Liverpool inay ogolaan doonaan Joao Gomez inuu dhaqaaqo Villa Park iyo Aston Villa inta lagu guda jiro daaqada kala wareegga ciyaartoyda dhinaca kalena Manchester United ayaa kula biireen Dortmund iyo Atletico Madrid xiisaha garabka reer Colombia iyo Porto Luis Diaz ciyaaryaanka 25 sano jirka ayaa horyaalka Portugal Premier League waxa uu dhaliyay 14 gool 18 kulan oo uu ciyaaray naadiga Porto waxaana haatan qaab ciyaareedka wacan ee Portugal oo ku soo bandhigay ay soo jiiteen kooxaha Borussia Dortmund oo Bundesliga Germany ciyaarta Atletico Madrid oo La Liga Spain ka xamaalata iyo naadiga reer England ee Premier League ciyaarta ee Manchester United Porto ayaana weli ka jawaabin dalabyada ciyaaryaankan u imaanaya iyagoo Porto ay doonayaan daaqada kala wareegga ciyaartoyda inta lagu guda jiro in ciyaaryaankaasi ay ku sii celiyaan horyaalka Portugal ee Premier League Atletico Borussia Dortmund iyo Manchester United dhammaan kooxaha daneynaya adeegiisa
ayaan shaacin qiimaha ee ku daneynayaan in Porto ee kasoo siistaan adeega ciyaaryahanka reer Colombia ee garabka ka duulaan taga ee Luis Diaz. dhinaca kalena Arsenal ayaa waxay calaamadeysteen dhowr weeraryahan oo arkaan bedelka bartilmaameedkooda koobaad ee daaqada kala wareega ciyaartoyda Dusan Vlahovic oo ka tirsan naadiga Fiorentina ninka reer Serbia. wakiilka ciyaaryahanka iyo Dusan ayaa doonaya in ciyaaryahanka uu sii joogo Real kaashaha dalka Talyaaniga, gaar ahaan Dusan Vlahovic ayaa daneynaya inuu ku biirado Lady. Arsenal ayaana doonaya maalimaha qoray ka haray daaqada kala wareega ciyaartoyda in ay raadsadaan weeraryahan marka loo eego Emery Aubameyang gebi ahaan oo ka baxay qorshaha tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta. Arsenal ayaa haatan lagu soo waramayaa in ay calaamadeysteen dhowr weeraryahan oo ku jira weeraryahanka Real Sociedad Alexander Isak, ciyaaryahanka Everton iyo England weerarkaga ciyaareed Dynamiga Calvert-Lewin. waxaana Arsenal tababarooda Mikel Arteta oo doonaya in weeraryahan suuqa kala wareega ciyaartoyda Arsenal ee la soo dhaqaaqaan. Dusan ayaa doonaya kaashaha inuu sii jooga, waxaana Arsenal ay doonayaan maalimaha qura ee suuqa ka haray in waqti badan oo san kaga dhumin Dusan oo ay arkaan mid aan doonaynin Premier League inuu u soo dhaqaaqo. dhinaca kalena Manchester United ayaa bilaabeen raadinta bedelka tababaraha sida kumeel gaarka haatan shaqada United-ka u maamulaya ninka reer Germany ee Ralf Rangnick. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay bartilmaameysteen dhowr macallin waxaana liiska tababarayaasha hogaaminaya hogaamiyaha PSG ninka reer Argentina ee Mauricio Pochettino, hogaamiyaha qaranka Laraja Spain Luis Enrique, hogaamiyaha Sevilla Juan Lopetegui. iyadoo Manchester United ee doonayaan sidoo kale tababaraha Ajax Erik ten Hag, waxaana macallimiintan midkooda ee Manchester United doonayaan inay la soo socdaan xilli ciyaareedka soo aadan. 6 bilood oo shaqo kumeel gaar ayaa loo doorteen ninka la yiraahdo Ralf Rangnick. inta xilli ciyaareedkan ka dhimanayana ka dhigan tahay in Rangnick uu sii joogi doono Manchester United, iyadoo haatan durbadiiba Manchester United ay bilaabeen raadinta shakhsiga ay ku bedeli lahaayeen marka xilli ciyaareedkan oo soo ilaado, iyadoo xidigaha qaarna Manchester United aysan ku qanacsaneen falsafada wax ku maamulaya tababaraha reer Germany ee Ralf Rangnick. dhinaca kalena Wolverhampton Wanderers ayaa Tottenham u sheegeen haddii ay doonayaan xogweynaha reer Spain ee Adama Traore inay bixiyaan adduun lacageed gaaraya 25 milyan oo lacagta euro. Tottenham hogaamiyahooda Antonio Conte ayaa doonaya in weeraryahan oo la soo dhaqaaqay inta lagu guda jiro daaqada kala wareega ciyaartoyda, iyadoo Spurs ay u dagaalamayaan 4 boos ee loogu soo aadayay Champions League xilli ciyaareedka soo aadan. Tottenham ayaa miiska saagaareen 20 milyan oo lacagta euro, laakiin Wolves ayaa iska soo diideen iyagoo dalbaday 25 milyan oo lacagta euro inay kaga sabri karaan Adama Traore. dhinaca kalena Nice iyo Newcastle United ayaa ku biireen raacdada loogu jiro qadka dhexe ee Manchester United Jose Lingard. ciyaaryahanka 29 sano jirka ee reer England ayaa baxsadka ee kursiga keedka ee Manchester United. liigaga Faransiiska naadiga ciyaarta ee Nice ayaa doonaya in si toos ah ula wareegaan Jose Lingard iyo Newcastle United heshiis ama 6 bilood ee u bandhigeen Manchester United lagu siiyo Jose Lingard. dhinaca kalena naadiga Bundesliga Germany ciyaarta ee Bayern Munich ayaa Chelsea waxay kula biireen raacdada loogu jiro Frank de Jong. 24 sano jirka qadka dhexe kubadda sameynta ka ciyaara ee Frank de Jong ayaa si weyn Chelsea loola xiriirinayay, waxaana haatan loolanka qeyba ka noqotay Bayern Munich oo dhankooda doonaya in Barcelona ee kala soo sixidaan Frank de Jong. hogaamiyaha dhawaangalka ee Barcelona Xavi Hernandez ayaa u arkay ciyaaryahankan oo Barcelona mid muhiim ah sanadaha soo aadan. Barcelona ay ku tashanayaan ninka la yiraahdo Frank de Jong, ana Xavi Hernandez oo u arka ciyaaryahankan mid shaxdiisa lafdhawr ee Frank de Jong
Barcelona ayaana loogeen sida ay kaga jawaabi karaan dalabka u imaanaya Franka de Jong oo kasoo gaaraya Bayern Munich iyo Chelsea. koobka qaramada iyo qaaradda Afrikada oo haatan soo gaaray meelihii u xiisaha badnaana waxaa haatan tartankaasi wareega 8-dhamaadka ama quarter finalka u gudbay xalay dalka tartankani mucjisada ka dhigaya ee Gambia kuwaasi oo garaaceen jamaahiirta oo hogaaminayay Naby Keita oo Liverpool ka tirsana Guinea ayayna garaaceen oo tartanka gebi ahaan ay ka saareen. martigeliyaasha Cameroon ayaa iyagana 2 gool iyo gool Comoros ku garaaceen waxaana martigeliyaasha Cameroon iyo Gambia ee ku biireen xulalka Burkina Faso oo tartankani Tunisia oo iska xaadiriyay wareega quarter finalka tartanka qaramada iyo qaaradda Afrika. caawana kulamo xiiso badan ayaa jira. Senegal ayaa la ciyaari doonaan jasiiradda Cape Verde halka Morocco ee iyagana la ciyaari doonaan Malawi. inta ayaa saaxiibayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha maanta oo Talaata. anigoo Xasan Cabdullaahi ayaa barnaamijka idin saar halkaan idinkala socodsiinay farsamada kaameradana Libaan ayaa iga saaciday. dhammaanteen isku duuban dib inta kulmi doona amaan Allah.